waxaase jirtay arrin kale oo muhiim ah oo aan rabo bulshada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogteen ay ogaato arrinka muhiimka ah wuxuu yahay waxaa jira dawladda federaalka ah runtii arrin baan arkay arrinka marka aan arkay in badan oo kamidana aan ka arkay qaab dhaqanka dawladda federaalka ah waxaan isiri dawladda federaalka ah waxay soo turjumtay ama soo maanguurisay arrin aan kaaga sheekan doono hadda arrintaasi waxay u baahan tahay arar fara badan inaan galo si ay dadkuna u fahmaan oo faham fiican uga qaataan 1978 ayaa waxaa fakaday dukumentiga wuxuu ka fakaday sirdoonka Mareykanka CIA dukumentigaas waxaan ku aqriyay anigu af Carabi waxa la yiraahdaa al-aslaha as-saamita fi hurub hadi'a oo macnaheedu uu yahay hubka aamusan dagaalada qabow nin la yiraahdo Nucumta Shomiski oo dalka Mareykanka u dhashay laakiin asal ahaan Yahuudi ah siyaasadda Mareykanka uu ku shaqeeyana aad uga soo horjeeda ayaa wuxuu buugaasi helay buugyarahaas waa buugyare loogu talagalay in lagu xukumo shucuubta dunida marka buugii magac fiican ayuu u bixiyay asaga oo magacaas ay u bixisay hay'adda nabad sugidda Mareykanka ka duwan waxa uu u bixiyay magac la yiraahdo al-istiraatiijiyat al-10 للتحكم بالشعوب oo ah istiraatiijiyadaha 10 ah ee shucuubta dunida lagu xukumo istiraatiijiyadaas waxa ka mid 10 istiraatiijiyadood oo la raaco si shacabka loo xukumo oo gacanta loogu hayo waxa ka mid istiraatiijiyada ugu horeysa wuxuu u bixiyay la yiraahdo al-ilhaa lumin in yaani shacabka la maran habaabiyo la lumiyo dhabaday ku socdeen ma ahe dhaba kale la qaadsiyo marka wuxuu yiri marka istiraatiijiyada al-ilhaa bal istiraatiijiyadaas oo afwan marka wuxuu bixiyay istiraatiijiyada al-ilhaa buu bixiyay ujeedkuna waxa weeye in shacabka la lumiyo oo meeshay u socdeen ma ahane meel kale dhaba kale la qaadsiyo waa talaabada ugu horeysa weeye marka aad qodobkaas ugu horeeyo oo qorshaha luminta ama xukuumadda shucuubta ah aad akhriso iyo dawladda federaalka waxay ku dhaqmayso horta way yeelanayaan qodobka labaad qodobada kulligood ma soo wada qaadanaya laakiin inta ugu muhiimsan baan soo qaadanaya qodobka labaadna waxay u bixiyeen qodob la yiraahdo shucuubta kula dhaqan sida inay yihiin ciyaal oo kale oo shacabka waxa loola hadlayaa oo xogta loo siinaya dawladdu u siinaysaa sida inay yihiin ciyaal sabi ah oo wax loo sheegayo oo kale waana sida hadda aad aragtay dawladda federaalka ah ma aragtay ay ku dhaqanto qodobka saddexaad waxa ka mid waxa la yiraahdaa waxa weeye istiqbaa shucuub shacabka in laga dhigtaba dad waxba aan ogeyn oo ma aragtay aan waxba la socon xogta waxa loo siinayaa sida inay shalayba waxa la sameeyay aysan ka warqabin waxa kaloo ka mid ah istiraatiijiyadahaas 10 ah ee raacaan istiraatiijiyad la yiraahdo dhibaatada abuur halkeedan adiga raadi ba ka mid ah oo waana yaani inta badan aan la soconana wataan aragnay in dawladda federaalka ah ay dhibaatada ayadu abuurto kadibna ay isku daydo bal in xal iyo magaciisa loo raadiyo si dadka loo mashquuliyo waxa soo idil istiraatiijiyad 10 ah oo aad arkayso dawladda federaalka ah inay ku dhaqmayso gaar ahaan meediyada u adeegsanayso ayaa kaaga soo muuqanaya ilaa inteebeen u haynaa macluumaad sax ah oo xaqiijinaya inay shaqaale dawladeed yihiin dadka baraha bulshada ka difaaca madaxda iyo siyaasadda dawladda federaalka ah runtii waa u jeednaaba oo waan aragnaa inta badan laakiin hadalkayga hore aan dhamaysto fadlan 10ka istiraatiijiyadood ujeedkooda waxa weeye in shacabka laga leexiyo marinkii ay ku socdeen oo ay rabeen inay ayagu maraan waxa ka mid ah istiraatiijiyadaha ay adeegsato yaani meediyaha in loo mariyo shacabka fariimo la rabo ayaga in saameyn lagu sameeyo oo lagu haysto tusaale ahaan waxa jira barnaamij caan ah oo la yiraahdo magaciisa Iskumaan oo Soomaaliya idin meel kasta ay joogto ay dhigaysato kalamaan afan barnaamij caan oo la yiraahdo kalamaan Soomaaliya meel kasta ay joogtana way dhigaysataa barnaamijkaas dawladda federaalka ah warbaahinteedu waxay damceen
in ay sameeyaan barnaamijkaa ka duwan oo waxay u bixiyeen iskumaan waana arin la yaab leh in maanta uu qof yani nool qarnigii 21 uu ku fakarayo waxa la iskumaan umadaani ma noqon karto ilaahayna abuurtay subxaanahu wa ta'ala wuxuu la yazaaluuna mukhtalifiin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum yani fiiri wa iskhilaaf sanaanina illa bunka qiyaama yeero dawladnimaduna macnaheedu waxa weeye inay maamusho iskhilaaf sanaanta inoo dhaxaysa maamul dawladeed macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay maamulka iskhilaaf sanaantaas marka iskumaan marna ma noqon karto suugaanta Soomaaliyeed waxaan ka dheehan karnaa dadku marnaba inaysan noqon karin iskumaan oo waxa u daliila Soomaalidu oraahda ay yiraahdaan oo ah maan rag waa mudciye afkood oo macnaheedu uu yahay waa isku dhawaan karnaa ra'yi ahaan laakiin marnaba iskumaan ma noqon karno waana arin la yaab leh madda dawladdu waxay damacday inay ka hortagto barnaamijkan caanka ah ee la yiraahdo kalamaan laakiin sida ay uga hortagtay iyo qaabka ay la timi baa runtii wuxuu yahay qaab ka duwan waxaas oo dhan marka maxay hoos imaanaysaa waxay hoos imaanaysaa barnaamijkii aan kaaga waramay ee ahaa oo uu qoray Nucumta Shomiski ee ahaa 10 istaraatiijiyadood ee xukuumadda shacabka waxa ku jira waxa la yiraahdo at-tadlil al-i'lami lumin warfaafineed dadka in la lumiyo ba ku jirta warfaafineed oo dawladdu aniga federaalka maanta waxa ka sugayay aragtiyada cusub ee maamulka warbaahineed in ay ku maamusho dawladda laakiin markii ay la timi ay soo qaadatay dokumentiga sirka ah oo fakaday oo 10 qodob ay ku qoran yihiin runtii dadkuna way raadin karaan wayna kala soo degi karaan internetka oo sheegay ciwaankiisa waxa la yiraahdaa waxa weeye al-aslaha saamita fi hurub hadi'a waxa weeye hubka aamusan dagaalada qabo hatta internet waliga kara waa buug yara ah qof kasta oo akhrin kara ninka qoran waa tasaan ku sheegay waxa la yiraahdaa Nucumta Shomiski waa qoraa mufakkir yahuudi ah asalkiisu yahuud ka soo jeeda laakiin waa nin shacabka Mareykan oo dhashay oo hatta mar kamid ah madaxweyne Nixon waxa uu ku tilmaamay inuu yahay cadow Ameerika cadow koowaad ee Mareykan ninkaasi taqassusay waa taqassus ka duwan كان هذا كشكل إنه وكنت أقصد وعالم حق أففك oo aragtiyo badan oo afafka ah dunida ku soo kordhiyay oo kamid tahay aragtida an-nahw at-tawlidi oo nahwaha soo kordhiyay ee qaabka afafka afka ingiriisi kaliya kuma xirnaa wuxuu ku xiran yahay afaf badan bunkaas ayuuna marka waa ninka noocaas buugaas turjumay oo la wadaagay tan kale oo luminta warfaafinta markaan kula yahay dawladda iyadu waxay soo adeegsatay dunida يعني أركتيدي وقبرنا ماشي الربيع أديكسته هو في عن تصالح هان يعني أنا ما دام تغسكه هو ورباهين وحنا جرني نلود بيجري وحوي أرمها نوع عصا لو منطقة يدرك غابك يعني دعايتها لو استعماله يمجلسي من بيجري مركا أردل فتلر هو أهل الترية مدن وزير كأورفافيت النقدي أركتيه بدن النوع عصو دريد كسوق دي ما يولد يتفدر على الاستعمال ودعايتها بين لو يدون كنيك يويران بين شيء فعل علي سيادتكم ومرايا وعقلوا كم أركتوا يري وحوي السي باهين بلا ضميرة شعب بلا وعية كوسينا يعطيني إعلاما بلا ضمير وعندك وحوي شعبا بلا وعي بكمل وأنا سيد مركب أفرسته warbaahintii loogu talagalay in dadka lagu hago warbaahintu saddex shaqo ay qabataa waxa weeye warbixin waxa weeye aqoon iyo madadaalo yani wargelin waxbarad iyo madadaalo waa qaldan tahay aqoonnimo ma jirto oo lama ogolo oo de buugaasi dawladda federaalka ay ku dhaqanto oo ah 10 istaraatiijiyo xukuumadda shacabka ma ogola shacabku inuu yeesho aqoon waxa ku jira waxa weeye الجهل والغباء dadka in lagu tacaamulay jaahiliin oo aqbiyeen su'aal fahmeen entertainment ma jiro oo marka dadku entertainment ka heli lahaayeen barnaamijyo ula mid yahay barnaamijka kalamaan ra'yi kale ee dawladda tan waxay tiri iskumaan runtii khatar noocaas ay muuqata wuxuuna waajib ka saaran yahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo dameer leh inuu dadka ka wacyi geliyo in loo tacaamulo media loo tacaamulo in sidaas noqdo